Turkiga oo la sheegay in diyaarad dagaal ay ka soo rideen dowladda Armenia xilli uu dagaal kala dhaxeeya Azerbaijan. Dowladda Armenia ayaa ku eedeysay militariga Turkiga in ay ka soo rideen diyaarad nooca dagaalka ah maalintii Talaadada intii uu socday dagaal u dhaxeeyay ciidamada Azerbaijan iyo Armenia. War ka soo baxay dowladda Armenia ayaa lagu sheegay in diyaarad nooceedu uu yahay F-16 oo ay leeyihiin militariga Turkiga ku soo xadgudubtay habada dalkeeda ayna soo riday diyaarad dagaal oo nooceedu yahay Su-25. Dowladda Armenia ayaa sheegtay in uu geeriyooday duuliyihii waday diyaaradda la soo riday, waxa ayna Turkiga ku eedeysay in weerar gardara ah ku soo qaaday iyaga oo taageeraya dowladda Azerbaijan. Turkiga ayaa beeniyay eedeynta ugu timid dhinaca Armenia, waxaana warkan ka soo baxay Armenia ku tilmaamtay xukuumadda Ankara kuwa been abuur ah oo lagu qarinayo weerarka gardarada ah ee Armenia ku qaaday dhulka Azerbaijan. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay in taageero walba oo dastuuri ah la garab istaagayaan dowladda Azerbaijan, waxayna Turkiga ku tilmaameen Armenia dowlad cadow ah oo duulaan ku qaaday Azerbaijan. Dagaalka u dhaxeeya dowladaha Armenia iyo Azerbaijan ayaa galay maalintii afraad, waxaana dagaalkan socda ku dhintay dad gaaraya 100,000 oo qof oo ay ku jiraan dad shacab ah oo labada dal ka soo kala jeeda.